قصة هيست هوي لعنتا هيست هوي waxaa curiyay eebaha u naxariistay abwaankii weynaa abwaan hadraawi rabbi naxariistiisa jannaha ka waraabiye abwaanku asaga oo ka sheekeynaya sababta curinta heesta hooyo la'aanta waxa uu yiri aan idin sheego hooyadii waxa ay dhimatay aniga oo yar haddaba heesta hooyo maxaa ay ku timid sanadkii 1973 waxa aan ku noolaa xamar gaar ahaan la foole oo xamar ka baxsan 20 kiiloomitir halka ayaan deganaa magaalada xamar ayaan u soo aaday qaadku habeenkii ayuu imaan jiray waxaa jiray gaari bas oo ka shaqeyn jiray wadada xiriirisa afgooye iyo xamar qaadkii ayaan soo qaatay gawaaridii ayaan horay u soo raacay kursi ayaan ku fariistay kursiga iga soo horjeeday waxa ku fadhiyay 7 qof 5 rag ah iyo 2 dumar ah maamo waayeel ah iyo gabar marcurad u muuqatay ilmo yar oo wiil ay dhabta ku haysatay cabbaar markaan soconay ayuu cunugii afka furtay oo hin hooyadii diraca ayay gacanta gelisay kadibna naaskii ayay banaanka u soo saartay oo afka u gelisay waan yaabay oon ama kaagay dhaqankii gabdhaha Soomaaliyeed lagu yaqiinay ayaan isweydiiyay isla markaana naftayda ayaa iigu jawaab celisay inay waxaas hooyanimadu ka weyn tahay wuu jaqay ama nuugay markuu dhargay ayay naaskii ku ceshatay halkiisii fagaaraha iyo in gabar Soomaaliyeed naaskeeda banaanka keenta ayaan la yaabay aad ayaan u fiirinayay heer dadkii ay moodeen inaan naaska gabadha fiirinayo cabbaar markaan soconay ilmihiina uu ciyaaray wiilkii dhabta hooyadii ayuu ka buuxiyay xaar iyo kaadi ama saxaro iyo kaadi sidii caadada ahayd anigu wali waan daawanayaa waxay bilowday inay saxaradii dharkeeda ku tirtirto gorgoradiina inay geyso boodiyaha ayay bilowday waaba mid tii kale ka daran sidaas ayay cunugii saxaradii uga nadiifisay ayada oo hadba meeshii angegan ku qabanaysay halkaas markay ay mareyso ayuu yiri hadraawi waxaan xusuusteydii u celiyay yaraanteydii xilliyadii iyo xaaladihii adkaa ee noloshayda waxaan si gaar ah u xusuustay xilligii geeljiranimada iyo qisadii la yaab ka lahayd ee libaaxa xilli dambe ayaan soo baraarugay oo xusuusaha hooyanimo ibay hoofiyeen ana dhaafay halkii aan u socday habeenkaas ayaan bilaabay curinta heesta hooyo la'aanta heestani waxa ku luuqeeyay fanaanka codka dahabiga ah ee Maxamed Saleebaan Tubeec